مروة بمغلي لكن حقيقة أهان تاريخ أهان حضيو لحية طبعاً جون صدحيو لحدنكي dadkii wadankaas deganaa u dhashay madaxdoodii ku kulmay ku shiray go'aanka ay gaareen wuxuu ahaa in waxay bixiyeen dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaali galbeed marka magaca Soomaali galbeed 64kii Juun markaas ugu horeysay intaan ka warqabaan WSLF ma la dhihi karaa waxay bedeshay Nasrullah waa la oran karaa maxaa yeelay dadkii Nasrullahida asaasay baaba kamid ahaaba in magacaan lagu heshiiyay iyagoo iswata in magacaan lagu dagaal galo maxay Sheekh Ibrahim Xaashi 15 Central Committee uu sameeyay June inay ahayd baan u maleynayaa xamar ku sameeyay anaga oo qaahiro soo socno naloo soo diray ardo waxbarashana aan kamid ahaa 25 kaas anigu aan kamid ahaa iyo rag hadda qaarkood nool yihiin oo magacooda aan aqaano ka mid yahay Xuseen Mataan oo jooga Minneapolis 25 kaas waxay ahaayeen gudidii Sheekh Ibrahim oo madaxda ahaa ee Nasrullahi 63kii meesha uu ka abuuray lana midowday dawladda ku meel gaarka ah ee xoreynta Soomaali galbeed waa maasantahay dawladdii Maxamed Siyaad Barre daacad ma ka ahayd xoreynta gobolka Soomaali galbeed ama ogadeen taas waxa jawaabteedu noqonaysa waxa weeye way ka ahaayeen daacad way ka ahaayeen laakiin waxa maartay khaladka weyn ay galeen strategically waxay galeen waqti aan munaasab ahayn si aan munaasab ahaynna waa loo galay laakiin iyagu shakhsi ahaan lama oran karo daacad kama ahayn maxaa yeelay shahada badan oo dadka askarta Soomaalida kamid ah oo shacbiga Soomaaliya kamid ah oo ay ahayd maartay ujeedadooda inay wadanka xoreeyeen yaa meesha ka qayb galay okay dagaalkii xoreynta Soomaali galbeed ama ogadeen maxay ahaayeen waxyaabihii hor istaagay ma siyaasad xumo mise arrimo kale horta waxyaalo badan baa hor istaagay ay kamid tahay dadka maamulka markaa hayay wadanka Soomaalida xorta ah oo aragtidoodu siyaasiga ay aad u gaabnayd waxa kale oo kamid ah qadiyada Soomaali oo adduunyada dawladihii maamulayay Afrika iyo adduunka oo dhanba ka soo horjeeday inay Soomaali midowdo Soomaalida dawladda Soomaalida oo aan heelo dawlad xoog leh oo u heelanaysa aan jirin shuruudo badan oo kamid ah ay kamid yihiin dhowrkaas shardi ee magacaabay يا فشرادا سياسدي لو حرين لها اوغادين كمداي كوي ايها هاين ودمدي عربيد ee la soo saftay Ethiopia hadafkooda siyaasadeedna muxuu ahaa maadaama ay Soomaaliya kamid ahayd ururka Carabta saamaxada Carabta waxa dhibaato weyn ah inaan meeshan ka xusno waa markii uu horeysay oo laba dawladood oo League Arab kamid ah Soomaalida oo League Arab kamid ah ay cadow dawlad League Arab kamid ah cadawgeeda ay la safteen waa Libya iyo Yementii maartay markaas ahayd maartay junubka marka asbaabta ku kaleftay inay cadawga Soomaalida cadawga wadanka Soomaalida inay garab istaagaan waa anigu kama hadli karo maxaa yeelay iyaga qorshahooda wata siyaasadooda waxay ku gaareen inay iyaga dan u tahay inay Soomaaliya oo xaqeeda raadinaysa la saftaan waxay ka doorteen dana iyagu ay leeyihiin oo gooni ah inay maartay iyagoo ilaalinaya inuu cadawga ummadda Soomaalida inay la saftaan taasa gaarsiis marka iyaga la weydiin karaa gumeysiga Ethiopia muddo dheer ayuu wadanka ogaadeenaya gumeysanayay marka maxaa hor istaagay in ummadan gobolka ogaaday ama Soomaali galbeed ay xornimadeeda gaadho asbaab badan baa taas nafteeda lagu jawaabi karaa waxa kamid ah iyadoo on marnaba aan jabhad shuruudii jabhadeed leh ay marnaba aan la asaasin waxa ina waday oo nin walba waday waxay ahayd caatifad iyo gumeysi nacayb laakiin lama fiirinin adduunyada
ciyaarta ka socota ee dawladaha reer galbeedku ay ciyaarahayaan sidii inagu priority aynu uga qaybgeli lahayn ciyaarta inagoo xuquuqdeena raadsanay dad istiraatiijiye ama xeel noocaasa dejin kara ma lahayn Soomaaliya meelay joogaanba marka saas waxa kaloo ka mid ah inaynaan marnaba wax noo hiiliya ayna haysanin oo Soomaali xuquuqdeeda inay gaadho ku garab taagan inuusan jirin waxaa kaloo ka mid ah in inaga gumaysiga ina haysta uu ka duwan yahay gumaysiyadii kale waa madow darisna waa inala yahay marka waxyaalahaas oo dhan oo isu tegay yaan keli ku noqonnay inagoo aan aragti maartay qayaada fiican oo daacad ah oo aragti dheer leh inagoo lahayn inagoo shuruudii jabhad ay lahaan jirtay aan la oofinin oo la buuxinin inagoo siyaasadda adduunyada oo dhan ay naga soo horjeedo waxyaalaha asbaabtaas oo dhan oo la isu geeyay yaa ina hortaagan laakiin waxaan hubaa haddii la bedelo istiraatiijiyada halganka aan ku doonayno inaynu ku xoreyno dhulkeena shaki waxaan lahayn inaan xornimadeena oo lama horaana inaan gaari doono marka la buuxiyo shuruudda halgan ay lahayd marka dhibaatooyinka badan oo maaragtay aragtaridu inoo geysay jamhuuriyadda Soomaalida waxay ka tahay member United Nations ka member ka tahay xaggaas laga xuduud cadaalad darri oo loo sameeyay bay joogtaa dadkeeni wadanka deganaa oo dhan Soomaaliya tageen waxay ka noqdeen wasiir waxay ka noqdeen general waxay ka noqdeen ambassador bay ka noqdeen adduunyadu marka waxay qaabsan tahay dadkaas inay yihiin Somali citizen marka nin Somali citizen ah in oo darajooyin dawlad la aqoonsan yahay wata inuu haddana yiraaho waxaan ahay jabhad baan ahay adduunyadu si ay maartay u liqdo way adag tahay marka taana inaga garashalaan ma inoo geysay ma waxayna gaarsiiyay ma garanayno waxyaalaha aniga iyo dhalinyaro aan ka mid ahay aan mar walbana hortaagnay waxay ahayd in la kala saaro aan la isku qasin dawlad Soomaaliyeed oo adduunyada aqoonsan tahay iyo jabhad gobonimo doona oo la gumaysto inaan la isku qasin labadaas shacbi yaa mar walba anagu aan soo jeedinay laakiin waana la xoog badnaa marna lama fulinin ra'yiga aan soo jeedin jiray waxaad ku fasiraysaa waxyaabahan qadiyada ay la xoroobi leedahay ama ay halgan ku guuleysan lahayd inay tahay siyaasad xumo kolba nin iska afduubanaya shaki waxaan lahayn inay siyaasad xumo waxa meesha ayna gaarsiisay inay tahay haddii la fiiriyo maaragtay reality haddaan fiirino Ethiopia ciidankeedu ama ha noqdo mar Tigray haysto ama mar Amhara haysto inagama adka taa waxa taariikhdu ay marxaati ka tahay saddex goor oo taariikhi ah oo Soomaali kaliya iyo Ethiopia kaliya iska hor yimaadeen saddexda goorba Soomaalida ka adkaatay saddexda goorba mar walba waxay helayeen hiilo dibad ka timid marka horeysay waa Axmed Gurey marka ku xigtay waxay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markuu ka saaray jigjiga iyo wixii maartay meelahay soo gaareen ay shiftinooy ku soo gaareen marka saddexaad waxay markii 77kii laga saaray wadankan dhan lagu xoreeyay marka waxaan ka wada taas Amharadu iyadu inagama xoog badna laakiin mar walba waxay haysataa siyaasad xumad xaggan ka timid iyo hiilo dibadda ooga timaado bay caalsaaraha ku heshaa haddaynu hagaajino shuruuda halgankeena ay haddaynu buuxino iyadoo teenu ay si gooni tahay oo aan la mid ahaynba ummadihii kale la gumaysanayay oo waxa inuu gumaysanayay uu nin madow yahay oo waxa inuu gumaysanayay nin dariskeena uu yahay haddaynu inagu shuruudaheennii iyo midnimadeennii inagu aynu adkayno waxaan hubaa 4 bilood oo isku xigta inaysan Tigray iyo Amharo dhulkeena enjoy karin haddana waxaan u gudbaynaa waqtiga aad mas'uulka ka ahayd Algeria madaxda Carbeed ee aad la kulantay xilligii aad ahayd wakiilka jabhadda WSLF yay ahaayeen madaxda aad la kulantay Algeria horta madax badan oo carabta madaxdu waan la kulmay rag intellectual ah rag culimo ah mashaayikh culimo ah rag barlamaan ku jira rag wasaaradda ah laakiin labada madaxweyne ee aan aad xoog u saaray